هيلا داينا نمن كدارودا waxaan ay artiga dawladda diin la kala roone maxamuud garaadka waxaan aashu shoora hadda firadeen haduu galo maxamuud garaadka dagaal doonayaanahay waxaan ay ugaaryaanka dagaalamada daamood afayeenka beelaha daarood Cabdikariin Cali Nuur oo muddo 4 maalmood ah arrimo siyaasadeed ugu xilnaa Soomaaliland ayaa dib xorriyadiisa u helay 4 maalmood ayna soo weedartay afayeenku saaka ayuu dib ugu soo laabtay halkii laga xiray ee magaalada Laascaanood waxaana halkan oo ah duleedka bari ee degmada Laascaanood soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Laascaanood afayeenka beelaha daarood ayaa xariga ay Soomaaliland u geysatay waxa cambaareeyay dadka uu afka ku matalo oo tirahan gaaraya ilaa iyo 10 milyan oo qof waxaan xarigaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah afayeenka ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Laascaanood waxa uu kulamo la qaadan doonaa oqaasha iyo waxgaradka gobolka Sool waxaana uu kormeero kale ku soo mari doonaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sool saxan saxo udgooniyo samaya wanagabada ya saxaba furanta sadriga idinku hayna sumcadiyo sharafba Soomaalida kuleedii sukayayo helba idin wada sugaya sumcadiyo sharafba Soomaalida kuleedii sukayayo helba idin wada sugaya وين تحسنيو استيلايو عراويلو سيدي مالين عيدا نيات سميك القعدة سيدي كسو دويلي welcome so dawana welcome so dawana دوين تحسنيو استيلايو عراويلو سيدي مالين عيدا نيات سميك القعدة سيدي كسو دويلي سموكي ميسان لما تالك لوغو سو دويي afayeenki beelaha daarood oo muddo bila ku xidhnaa maamulka Soomaaliland kaasoo ku xidhnaa si xaq darro ah waxaan shucuurtayada dadkan aadka isugu soo baxay ay shucuurtooda muujinayaan jacaylka ay u qabaan iyo kalgacaylka afayeenkoodii oo ay tabeen muddo oo kama wuxuu ku xidhnaa afayeenka Cabdikariin Cali Nuur jeelka berbera waa la xidhnaa runtii Afrika oo dhan baa la xidhnayd Soomaaliya oo dhan baa la xidhnayd daarood oo dhan baa la xidhnaa runtii waxaanu leenahay maanta runtii maanta waa maalin weyn shucuurtu aad bay u kacsan tahay dadka farxadda waanu la wadaagaynaa afayeen Cabdinuur Cali Cabdikariin Cali ku soo dhawow gobolkaaga Sool waxaalaala wixii kaaga dhacay jeelka waa laga xal marinayaa waanu ka xunahay intii horena dib ugu noqon maayo waxa akhira jiray mooyaan waxa ila tahay wixii ka jooga sifaha ugu maqnaa gobolka waqooyi galbeed afayeenka beelaha daarood waa la og yahay martiqaad uu ka helay maamulka gobolka waqooyi galbeed martiqaad kaasoo martiqaad ma garanaysaa ahaa aan caadi ahayn alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay soo maamaya dadka meesha isugu yimi beesha daarood Ismaaciil aad iyo aad baan u salaamayaa ee ku soo dhaweynaya afayeenka beelaha daarood Cabdikariin Cali Nuur ku soo dhaweynaya aad iyo aad baan u salaamayaa oo si sharci darro ah
كحنا مامل كسوماليلاند وحنا ما شاء الله ما أنت وحرياتي سهلي قول بانو لنا قول بانو لنا قول بانو لنا قول الحمد لله رب العالمين midnimada iyo wada jirka aad ka shaqaysid dadka waa ku tabeen gobolka waa ku tabay dalka iyo dadkuba way ku tabeen aad iyo aad baan ugu tabay afayeen soo dhawow gobolka ku soo dhawow waxaan soo maray marxalad adag marna ma aanan welwelin waxaana iga caawiyay milcaamadihii aan soo dhigtay oo aan marna aanay iigu jirin ama aan lay soo dhigin in cid ii cabsi gelin karto waxa ay caawinayay milcaamadii aan ka soo aflaxay ee uu haystay ninka la yidhaahdo haddii eebaydanka bilay warsama jiirgaalle oo ahayd biixida nimay kaga dhacdo iyo boqonta mooyaane bas in loo dhintaba haatanan baranimaadhow oo ay ahayd macnaheedu dadkaiyo karoona iyo kaneeco mid dhashay weliga iyo xabad iyo seef baana dili jirtay oo aanan taa marra muraad ka gelin waxaan ka soo aflaxay oo ka soo loox jiitay milcaamadii khaliif xasan walah ee ahayd cayayaan haddii layska dhigo caaro iyo jiidha kobro coobbadaa kariyo oo caana baan ahay oo taa macnaheedu yahay hadalkii uu ninkii loo jiray cabdirasaaq xaaji xuseen oran jiray haddii yaraad baad idigoo maasanin oo ayar hadalka aad iyo aad baan idiin salaamayaa khiyaartan sharafta leh qoraxdan ilaa saaka taagnayd dhammaantiin waxaan rabaa dhowr kelmadood oo kooban inaan idhaahdo maadaama ay meel qoraxa tahay marka ugu horraysa ilaahay baa mahad leh ilaahigii islaamnimadii iyo iimaankayna ku sugay marka labaad waxaan idin mahadcelinaya ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto dal iyo dibad waxaan aad iyo aad u salaamayaa ugu mahadcelinayaa dadkiina maanta qoraxda ay taagnaa waxaan salaamayaa qof kasta oo dareenkiisa iyo shucuurtiisa aan dareemayo oo ka xanuunsanayay xorriyad la'aantayda waxaan aad u salaamayaa ugu mahadcelinayaa inamadii aanu isku faamliga ahayn ee u diyaar garoobay haddii aniga xorriyadda layga qaado keliga inaanan bilaa xorriyad noqon waxaan aad ugu mahadcelinayaa tii daahir afdaleel oo adeerkay ahaa milcaamadiisii waxaan ahay allaa daayinay nimanka daarooda waxaan ahay artiga dawladda diin la kala roone maxamuud garaadka waxaan ahay shushoora hadda firadayn hadduu galo maxamuud garaadka dagaal doonayaan ahay waxaan ahay ugaaryahanka dega labada daamood waxaa caawinayay tii maaweel milcaamadii maaweel ee ay ahayd haddii la isjirrabo aan dagaal soo kordhoqon waayo soo wax arriga joogaan jiilka hadhin maaha waxay caawinayay tii bidda faarax gaasoo ahayd teelteel daruuraya cirkoo tuuta midabkiile mar haddii tabaalaha xibruhu dhiig ka tegey waayo taf wareeme duullaa turqaday tiimbashiyo weerar maalmaha tanaadiyo xilliga taawishu hagaagto toddobaadda godan baan dhashoo layma taageeree mar hadday tacshiiradi dhacdo oo taageeruhu liico nin loo tudhaanahay anay tayda noqotaaye cabdifataax maxamed cabdi holhol media